sida dad badan la socdaan dhowrkii maalin ee la soo dhaafay waxaa dagaal xooggan dhex maray labada wadan ee aadka u hubeysan ee Pakistan iyo Hindiya. Dagaalkaas oo hadda xabad joojin laga gaaray ayaan doonaynaa bal in aan kala soo dhex baxno ilaa 5 cashar. Laakiin inta casharadaas aan u gelin ayaan faahfaahin kooban ka bixino sida wax u dhaceen. Laga yaabee dadka qaar inaysan la socon. Sheekadu waxa ay ka bilaabatay markii 22 bishii la soo dhaafay ee Abriil ee kooxo hubeysan oo aan la hayb garan ay weerar ku qaadeen dad dalxiisayaal ah magaalada Pahalgam ee ka tirsan Kashmir qaybta Hindiya ay haysa. Weerarkaas waxaa ku dhintay sida la soo wariyay 26 qof oo u badan dad Hindu ah. Weerarkaas cidda geysatay si sax ah looma oga, laakiin Hindiya waxa ay ku eedeysay in weerarkaas kooxo ka yimid wadanka Pakistan ama lagu soo tababaray amaba ugu yaraan dowladda Pakistan inay arrintaas wax ka og. Pakistan arrintaas way inkirtay, waxayna sheegtay in ay diyaar u tahay in ay cid kasta kala shaqeyso inay arrintaas baaritaan ku samayso ciddi ka dambe. Laakiin Hindiya arrintaas ma aysan qancin oo 3 bisha May ayay duqeyn ku bilaabeen magaalooyin ka tirsan gudaha Pakistan iyo magaalooyin ka tirsan Asad Shimir. Howlgalkaas oo Hindiya ugu magac dartay howlgalkii Sindoor waxa ay ku dileen ugu yaraan 30 qof sida la soo wariyay, waxayna ku dhaawaceen kontumeeyo. Ugu yaraan 9 goobood ayay duqeeyeen ayaa la yiri oo ka kala tirsan 6 magaalo. Haddaba Pakistan arrintaas way ka falcelisay, ayadana waxa ay bilowday howlgal ay ugu magac dartay Bunyanul Marsus, kaas oo ay ku duqeynaysay saldhigyo iyo meelo ay degan yihiin ciidamada Hindiya, halkaas oo la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 10 qof, kontumeeyana ku dhaawaceen. Waxaa kale oo la sheegay inay soo rideen 5 diyaaradood oo ay ka mid yihiin diyaarado Faransiisku sameeyo oo loo malayn jiray in aanba la soo ridi karin, horena aan loo soo ridin. waxayna ku soo rideen diyaarado Shiineys. Adiga dhowr maalin oo hore iyo gadaal wax isugu tuurayay, qola kastana ay wax sheeganaysay, ugu dambeyn ayaa xabad joojin lagu dhawaaqay. Haddaba dagaalkaas maxaan ka baran karnaa? Waxyaabo badan ayaan ka baran karnaa. Midda koowaad, arrinta aadka loo hadalhayo ee ah awoodda dowladda Shiinaha. Dadka wax falaqeeya waxa ay sheegeen in labada wadan oo isdagaalay midkoodna uusan guuleysan, laakiin waxa guuleystay ay yihiin Shiinaha, maadaama diyaaradihiisa oo aan hore loo tijaabin, dagaal weynna aan gelin, lana yasi jiray, la xaqiijiyey inay soo rideen diyaarado Faransiis ah oo ayaga naftarkooda aan hore loo soo ridin, loona malay jiray inaanba la ridi karin. sidaas darteedna dunida dhan ayaa maanta Shiinaha u waabsan, oo dad badan oo yara isku taagtaagi jiray sida reer galbeedka oo ay Taiwan isku haysteen iyo waxyaabo lamid ah inay tilaabo dib u degi doonaan. Arrinta labaad ee laga baran karo ayaa waxa ay tahay muhiimadda ay leedahay inaad haysato hub iyo awood. Dunida aan maanta ku nool nahay ayada oo aanba la is arkin ama aan la isu soo dhowaan ayaa shaqada la iska cabaya. Dunida maanta waxay ku saabsan diyaaradaha aad haysato casriga ay yihiin, gantaalada aad haysato casriga ay yihiin, difaacyadaadu inta ay awood leeyihiin iyo waxyaabaha la midka ah. Did kale maanta Pakistan haddii ay wadan iska caali ahaa laheyd, shaarbaha ayaa lagu qaadanaya, waxaana qasab ahaa laheyd in sida qarsan loo burburiyo ama si ka daran. Laakiin hadda waxaa muuqata labada wadanba inay kala baqayaan, sidaas darteedna Hindiya nafteeda aysan diyaar u ahayn inay dagaal dheer gasho. Labadooda waxa ay doonayaan inay shacabkooda yara u boolo xofteeyaan oo ay iska gadaan, laakiin midkoodna ma doonayo inuu dagaal dheer galo. Dunida waa laga ka xun oo lala ordo haddana la yiraahdo wadan hebel ayaa calan ka taagaya waxyaabo lamid ah. Dunida hadda joogto waxaa loo baahan yahay hub casri ah, maxaa yeelay ayada oon la is arkin ayaaba la isdilayaa. Dunida xaafadaada iyo jiifkaada ayaaba lagugu dilayaa adiga oon u jeedin. Arrinta saddexaad ee laga baran karo ayaa waxa ay tahay munaafiqnimada wadamada carab. Wadamo badan oo dunida ah way la kala safteen labada wadan ee isdagaalay, sida Turkiga oo kale waxa uu toos u la saftay Pakistan, Israa'iilna waxa ay la safatay India. Laakiin wadamada carabta waxa ay isku dayeen inay dhahaan waxaan nahay mudabdabiina bayna daalika, laa ilaaha illallaahi walaa ilaaha illallaahi, xaggana lama jirno xaggana lama jirno, iyada oo taariikh ahaan la ogyahay in Pakistan ay tahay wadamada Sacuudiga aad u taageera oo hiil iyo hooba la garab jooga, marar badanna u hiiliyey, iyada oo la ogyahay in calanka Sacuudiga ee shahaadka ku qoran yahay lagu istaagayay wadanka Indiya gudihiisa, iyaga oo muujinaya cadaawadda ay u qabaan guud ahaan dadka Islaamku abtirsan. Arrintaas waxay ii keenaysaa casharka afraad ee laga qaadan karo dagaalkaas oo ah cadaawada ay dadka aaminsan fikradda Hinduudfa ay u qabaan guud ahaan dadka Islaamka sheeg, ha ahaadaan kuwa deriska la ah ama kuwa ka fogfog ama dadka wadanka la degan ee Muslimka sida ay u necab yihiin. Waxa ay ka muuqanaysay hadaladooda, min kan baarlamaanka ku jira, kan wasiirka ah, kan xisbiga ka tirsan, kan saxaafiga ah, cid kasta oo dhawaaqda waxaa ka muuqanaysay nacayb ah ay u qabaan dadka ku abtirsada Islaamka, gaar ahaan saxaafadooda sida ay uga hadlayeen
arrimaha guud ahaan dagaalka sida ay uga hadlayeen, taas oo iyadana ii sii dhiibaysa qodobka shanaad ama casharka shanaad ee laga baran karo dagaalkaas oo ah saxaafadda, halista saxaafadda ama awoodda saxaafadda wixii aad tirahdaba. Dadkii saxaafadda, tusaale ahaan labadan wadan saxaafaddooda haddii aad kala dhegaysato, waxaad dareemaysaa sida ay dagaalka ugu jiraan, waad yaabaysaa. Tusaale ahaan qofkii dhegaysta saxaafadda Hindiya wuu yaabayaa iyagoo oo dhahaya xataa magaalooyin waaweyn ayaan qabsanaa ayay leeyihiin. Karaaji ayaa la qabtada ayaad maqlaysaa, karaaji dhulkaa la dhiga ayaa maqlaysaa, deked hebel dhulkaa la dhiga ayaa maqlaysaa, qaldhig hebel dhulka ayaa lala sima ayaad maqlaysaa. Dhanka Bakistan naftirkooda propagandaha dhinac ayay ka wadeen. Tusaale ahaan intaas ayaan dilnay, meel hebel ayaan duqeynay. Waxaa kale oo kasii fiidiyowyada la wareejinayo oo in badan oo kamid ah aysanba shuqul ku lahayn arrintan. Fiidiyoyaal Ciraaqa ayaa lasoo qaadanayaa, ama diyaarad lasoo ridayo oo wadan kale ka dhacday ayaa lasoo qaadanayaa. Qolo kasta waxay sheeganaysaa in ayadu diyaarada soo riday ama meel la duqeeyey ama diyaarad soo dhacday. Waxunbaa sawiradooda layska soo qaadanayay fiidiyoyadooda, kadibna waxaa laleeyahay harda ayadoo inta badan la xaqiijiyey muuqaalada la wareejinayo 80% in ka badan ay ahaayeen wax been ah. Taas waxay baraysaa halista saxaafadda iyo saxaafadda in siyaabo kala duwan loo adeegsan karo. Inkasta oo annaga saxaafadeena laga filanayo inay dhexdhexaad ka noqoto wax kasta, waxaasna naloo akhriyo, laakiin markay arrintu noqoto wadanka ama dadkaada ay noqoto, dhexdhexaad kama noqon karto. Waa inay ku hagaan qiyam iyo waxyaaba aad aaminsan tahay. Macquul ma aha inaad dadkaada iyo dalkaada dhexdhexaad ka noqoto sida naloo akhriyo. Sidoo kale waxaa jira cashiro badan oo laga qaadan karo sida dagaalada macno darrada ah ee siyaasiyiintu kiciyaan ay ugu dhiban yihiin ama ay ugu dhintaan dad masaakiin ah oo arrintaas aan shuqul ku lahayn. Hadda dhibka ugu weyn waxa uu soo gaaray dadka lagu kor dagaalamayay. Dadkii siyaasiyiinta ahay ee dagaalada kiciyana wax dhibaataa ma qabaan. Intaas ayaan jeclaystay in aan la wadaago. Haddii aad raxuun ka faa'iiday dhowrkaas qodob, fadlan subscribe, like, share and comment.